الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. salaamaya walaalaha muslimiinta dhammaan daafaha caalamka meel kasta ay ka joogaan. waxaana ku salaamayaa taxiyadan min cindi illaahi tabaaraka wa tacaala, alaa wa hiya salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. bacda salaam, alle subxaana wa tacaala ka rajeynayaa kulanka yagii aaladan ilaah inoo fududeeyey, inoo sakhiray ama inoo leyliyey, inuu rabbi subxaana wa tacaala inooga dhigati aanu khayr ku kulannay. alle subxaana wa tacaala baan rajeynayaa saan ugu kulannay meesha tan inuu ilaahay noogu kalmiyo jannadiisa tabaaraka wa tacaala insha araxmaan. caawa habeenadii dabiicigii noo ahaa oo kale ee aan walaalaha muslimiinta daafaha caalamka meel kasto meel kasto ay ka joogaan oo aanan ugu faa'iideyn jirnay arrimaha iyo shu-uunta ku saabsan xanuunada maanta in badan oo ka mida muslimiinta ay la taalaa dhacayaan, ee ku saabsan sixirka, isha iyo jinkaba. caawa waa habeenadaas aanu soo geli jirnay habeen ka mid a insha araxmaan, waana arrimaha iyo shu-uunta ku saabsan cilaajka ama xanuunada kala duwan ee walaalaha muslimiinta ee dareemayaan, qaabkay u dareemayaan, inay insha araxmaan masaladii su-aal ay kasoo dhiibtaan insha araxmaan. intaanu awoodna ama ilaahay subxaana wa tacaala ina fahansiiyana aanu uga jawaabno. wuxuuna mawduuca uu ku saabsan yahay weydiinta su-aalaha arrimaha shu-uunta ku saabsan sixirka, isha iyo jinka. saynu wada ogsoonaa in badan oo ka mida walaalayaal caalamka maanta, dad badan oo muslimiinta ka mid ah xanuunada caynkaa bay la taalaa dhacayaan. maca al asaf, haddana dadkii in badan oo ka mid a xanuunadooda waxay moodayaan inuu ku salaysan yahay dhakhaatiirta iyo isbitaallada. se markay ogaadaan in badanoo ka mid ah oo aada waqtigii xanuunkana ugu fogaado, ayay dib ka ogaadaan xanuunka inuu shayaadiinta lugta ku leeyahay ciyaadan billah. ilaahay subxana wa tacaala baa ka rajeynayaa in ummadda in badanoo ka mid a xanuunada markay soo qaabisho ama ay soo qaabilaan inay tabiibkooda ay ka raadsadaan kitaabka ilaahay sunnada nebiga caleyhi asalaatu wasalaam. insha araxmaan, waxaanu bilaabi doonaa masaladaha iyo su-aalaha walaalaha ay soo qoran doonaan ka jawaabidoodii. qadar iyo daqaa'iq yar baan haystaa, ilaa iyo 40 daqiiqo ayaan rajeynayaa walaalaha muslimiinta inaan uga faa'iideeyo su-aalaha masalada arrimaha ku saabsan oo ay weydiinayaan. insha araxmaan, waxaan rajeynayaa sida nabiga caleyhi asalaatu wasalaam inoo dardaarmay, addaalu cala alkhayri ka faacili. qofka walaalkii ama walaalkii khayr u horseeda ama khayr tusaa, khayrkii uu qofka uu ku dhaqma ama uu sameeyaa, ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiisama qofka uu siinaya. ajirka mid lamidana walaalkii khayrka tusay ilaahay subxaana wa tacaala ayuu u qorayaa, isagoo walaalka ajar ka shaqaystana aan laga nusqaaminaynin. marka waxaan rajeynaya insha araxmaan, inta maqalkii muuqiga garanaysa ama mawduucii barnaamijkan oo kalena socoto ee hadda ku jirta qadka, inay usii sheergareeyaan walaalahooda muslimiinta ah. laga yaaba in badan oo ka mid a adiga masalada aada u baahnayn inay walaalo kaloo friends kula ah inay u baahan yihiin inay weydiin lahaayeen, balse ay waddo u maraan iyo meel u maraan iyo waqti ay weydiiyaan inaysan helaynin. marka insha araxmaan usii sheergareeya walaalihiina si ay masaa-isha uga faa'iideystaan weydiinta arrimaha shu-uunta ku saabsan
sixirka isha iyo jinka calaamadahooda iyo xanuunadaha ee walaaluhu ay dareemayaan oo barkoodii in badanoo ka mida saddexdaas xaaladood ay ku lug yeelan karayaan. wallahi alcadiim in badanoo ka mida walaalaha muslimiinta maanta way la dhibtoonayaan arrinkan, dumarkaba ha u badnaadeen. marka insha araxmaan masaa-ishana way furan tahay, walaalaha muslimiintana way weydii karaan su-aalaha iyo xaaladaha ay dareemayaan. wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh. maxamed dayr waa soo dhaweynaysiin dhammaan walaalaha muslimiinta, una sii shargaraya walaalihiina arrimaha iyo shu-uunta ku saabsan su-aalaha caynka, waana uu furan yahay, waana weydiin karaysaan. jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wa shakara allahu fi sacyikum aw fi ijtimaacikum. ilah baa ka rajeynayaa maqaamkaananu ku kulanay, ilaahay dartii aan u kulanay, ilahay inuu nooga abaalmariyo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. marka insha raxmaan masaa-isha way furan yihiin. haddaan ugu celiyo walaalaha, masaa-isha waa weydiinta su-aalaha arrimaha iyo shu-uunta ku saabsan sixirka, isha iyo jinka iyo calaamadahooda dadka xanuunada dabiiciga sida u kala dareemaan. hal qiso yar baa idinla wadaagayaa oo aada ii cajabgelisay, oo aan la yaabay maqaamka inanta shaytaanka uu ku jiro, yani sida ugu adeegsaday zawjkeedii inuu ka fogeeyo. ilaahay baan rajeynayaa ilaahay inuu ka furto walaalka muslimka dhibkaa ku dhacay. afadiisa maxaaskiisa ayuu 2 sano ka hor halkan Nairobi ka qaaday, ilaah baa u qadaray, qurbaha buu geeyey. gabadha miskiintana jin baa ku jiray oo dhibi jiray. markii halkaa tagtay 2 sannadood gudahooda marxalad iyo xanuun iyo xarig wuxuu maray hadduu ka sheekeeya xataa adoon garanaynin inaad la ilmeynaysa xaqiiqatan. wakadalik walaalka ilaahay baa u saqiray marxaladahu mar waxaa ka mid ah inay leedahay guriga imaw xilliga shaqada. markuu guriga ugu yimaado askar bay u yeeraysaa, waxay leedahay ninka kan uu idili rabay. gaaladii si kasta hadduu ugu dhaadhiciyo u sheeguu yidhaahdo, yacnii gabadha tan jin baa hayo, jin ma qorayaan mana fahansana macnahoodii gaalada. wiilkii 6 bilood buu dhammaystaa, wuu soo baxaa, way ku dul oysaa, maalmo kadib haddana way xabsiyeysaa, ilaa ee noloshii ciriiri ku noqotay, xanuuno badan uu ka qaaday. marka marna sabab bay kugu noqonaya noloshaada inay ku dhibaan haddaan ilaahay kaa xifdin, adiguna xifaadadeeda aadan ku dadaalin. marka insha araxmaan waxaana masalada idinkugu soo qaadayan waxaa weeyaan inaanu fahanno xanuunada ku saabsan u baahnaanshaha dhaqaatiirta iyo xanuunada iyo shu-uunta ku saabsan 3daas arrimood, in ilaahay subxaana wa tacaala ina waafajiyo intaanu ka waafaqna insha araxmaan. mas'aladahana way furan yihiin biidni araxmaan. waana weydii karayaan walaalaha, kulligiin waa soo dhawaaneysaan, una sii sheegaraya walaalihiina si ay masaa-isha ay uga faa'idaystaan. jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum. walaalaha muslimiinta ka mida ayaa su-aal weydiinaya oo wuxuu leeyahay ama waxay leedahay, yani isha maxaa daawo ah? xaqiiqatan isha daawadeeda waa 2 xaaladood. haddii la garanayo qofka isha ka dhacday, sida macluumka axaadiista nabigana ku timaaday, qofkii baa laga codsanayaa isha ka dhacday inuu qofkaasi u weysaysto, qofkaana weysadiisa loogu qubeeyo, si niyadana uu markaasi ugu tufo, uguna duceeyo, u barakeeyo. haddaan isha aan la garanaynin qofka ay ka dhacda, laakiin qofka ay dhibayso, midna ogaada, asalka isha qofka bini aadamka way asiibtaa, laakiin kama hadasho, nudqi ma samayso. waxa nudqiga sameynaya oo hadlaya oo magaca insiga sheeganayo waa jin u weydaartay isha bini aadamka oo xubintaasi ku dhacday. marka isha haddaan la garanayninna iyadana waxay leedahay dacwaad badan, yani adciyo badan, waxay leedahay yani taxasunaad badan, waxyaabo badan oo laysaga ilaalin karo, xataa bacda wuquuciha, markay kugu dhacdo gadaasheedii. khaasatan inaad tahay qof ilaalinaya salaadaha awqaadeedii, inaad tahay qof adkaarta asabaax walmasaa xifdisan ama mar walba akhrinaya, inaad tahay qof yowmiyan
juska qur-aanka akhrinayo maraaxil noocaas oo kale ayaa looga gudbayaa qofkana la farayaa. ilaah baa rajaynaya subxaana wa tacaala qof kastoo ilinsi iljin ay dhibayso inuu ilaahay ka samata bixiyo insha araxmaan walaalaha. nacam, masaa-ishana way furan tahay, walaalaha muslimiintana way weydii karaan daafaha caalamka meel kasta ay ka joogaan. ilahay baa rajaynaya subxaana wa tacaala inuu naga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah. ilahayna subxana wa tacala ha ka xifdiyo dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan. xanuunada inta la taalaa dhacaysa iyo intay ku cusub tahay, intii soo dukaalatayba, in ilaahay subxaana wa tacaala uga dhigo dembi dhaaf. ila maxaa yeele nabiga caleyhi asalaatu wasalaam wuxuu ahaa xadiiskiisa, qofka muuminka ah ma laga qabto xubin xubnihiisa jirka ugu macnaha yar, xubintee doonta ha ahaato, oo xanuunu ka asiibo, ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu markaasi ugu dhaafayaa dunuubtii uu galay. inagana sideena dunuub qofka loo dhaafaa markaanu maqalno waxaanu mooneynaa inuu qofka dembiba hadduu ku dhaco dunuubta kabaa'irta inuu ku dhacayo. jawaabtii arrimahana sidaasi ma ah, laakiin waxaa weeyaan dunuubta isha way ka dhacdaa, afka way ka dhacdaa, dhagaha way ka dhacaan. yacni intaasoo idilna waa waxyaabaha ugu fudfudud oo ilaahay subxaana wa tacaala xataa weysaqaadka uu ku dhaafayo. maxaa yeele nabigu wuxuu yidhahday isha way zinaysataa, zinadeeduna waa annadar, waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo eegto oo ladiso ay macaansato maantao dhan maxaariimta ilaahay ay eegto ayaa zinadeeda ah. waxyaabaha ugu fudud oo ilaahay ku dhowrayana waxaa ka mid ah ama kuugu dhaafayo xilligaa weyse qaadanaysa inuu ilaahay dunuubtaasi uu kuugu dhaafayo. marka insha raxmaan ilaah subxana wa tacaala ka rajaynaya. dadka qaarkood baa aaminsan qofka haddii la imtixaano xanuuno lagu imtixaano in xanuunadaasi uu yahay dembi uu isagu markaa sababsaday. bacdul axaadiis way kusoo aroortay qofka dembi marar sababsaday in ilaahay subxana wa tacaala kaga goynayo, yacni dhibaatadaasi xanuunka iyo dhibkaa la marinayo. dadka qaar ka midna iyagoo sababsanin baa ilaahay ku asiibayaa si ilaahay qofkaasi iimaankiisa inta uu qodan yahay uu la egyahay ilaahay uu ogaado subxaanahu jala thanaa, isagoo u ogaal badnaay, cilmilqeybna uu ahaa arrin kasto. marka masaa-isha way furan tahay, walaalaha muslimiintana way weydiin karaan masaa-ishii arrimaha ku saabsan shu-uunta, arrimaha sixirka, jinka, isha iyo calaamadaha xanuunada dadku say u kala dareemayaan. masaa-ishii su-aalaha way noo furan tahay, yaanan hilmaamin inaan usii sheergareyno ama inaan usii tuurno walaalaha iyagii kale si iyaguna ay marka ugu baraarugaan. laga yaabaa mas'alad kastoo aad u baahan tahay ama aadan u baahneyn inay walaalaha kaaga baahi badan yihiin. taa weeyaan midda khayrka in lagu qaybsado la doonayo. allahna subxaana wa tacaala inoogu tilmaamay inaanu nahay khayruul umam, ummadihii ilaahay soo saaray kuwoodii ugu khayrka badan ayaa ilaahay subxana wa tacaala arrinkaa awgiisa nooga dhigay. marka masaa-ishii su-aalaha way furan yihiin, walaalahana way weydii karayaan. jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum. walaalaha muslimaad ka mid ayaa su-aal weydiinaysa, waxay leedahay sheekh, sixirka maxaa daawo u ah? wiil walaalka ayaa iga xanuunsan. waxaan leeyahay walaashaasi, xanuunka sixirka walaalkaa haya waxay ku xiran tahay bixasbi qaabka uu asiibay. dhowr nooc buu qofka sixirku asiibi karaa. ma qofka maalkiisa lagu sixray, ma qofka akhlaaqdiisa lagu sixray, ma qofka dabeecadiisa lagu sixray. bimacnaa sixirka qaabka loo adeegsado ayay ku xiran tahay. maxaa yeeley waxaa jira sixrul ma'kuul, waxaa jira sixrul mashruub, waxaa jira sixrul mujadad, waxaa jira sixru tafriiqi bayna azawjayn, waxaa jira sixrul marshuush, waxaa jira yani sixru takhyiil. sixirka anwaacda noocyadaas dhan uu leeyahay bay ku xiran tahay marka qofka la tijaabiyo qur-aanka. nacam, marka qofka qur-aanka la saaro wixii kasoo daahira bay ku xiran tahay. sixirka laba asal baana qofka lagu asiibin karayaa. in sixirkii sida qaabka loo soo sameeyo qofka isaga sidii loo siiyo uu cuno ama uu cabo ama uu ku istaago. sixirka marna jaanka baa loo soo dhiibayaa oo macnaha maradadka midka ah ayaa saaxirka usoo dhiibayo. qofkii bani aadamka ahaa ama sixirka loogu talagalay badankiisa ayuu la gelaya isagoo sixirka wada. marka labada xaaladood baa la kala xaqiiqsanayaa.
mid walbana daawadeydii bay leedahay. ilaah baa daaweyn karaya, laakiin juhdi dadaal haddii lagu bixiyo. nacam, in badanoo ka mid a rabbi subxaana wa tacaala wuu ka samata bixinaya, laakiin bishar tartar waa in la ogaadaa marka la tabiibayo qofkaasi xanuunka haayo inuu sixir yahay. haddaad idhaahdana qofkaasi sixirka haayo waa la garanaa nuucuu yahayna, marka waa kuu tilmaami karayaa qaabkaad ula tacaali lahaydeen iyo qaabkaad u samay lahaydeen. insha araxmaan walaasha waxaan jeclaha masaa-isha marka inay ii kala bayaamiso, haddii ay jirto hore in loo quraan saaray oo arrinkaasina ay ku caddaatay, iyo in qof hadda tijaabo horle u baahan in la ogaado ay u baahan tahay. ilah baa rajeynaya inoo ka dulqaado insha araxmaan. walaalaha muslimaad ka mid ayaa masalad kala weydiinaysa, waxay leedahay sheekh, sidee lagu garan karayaa qofka jiran in ay il hayso ama uu jin ama sixir hayo? saddexdaas calaamadood inay ku hayso waxaa ku ogaan kartaa cumuum iyo guud ahaan marka la yidhaahdo. haddaad tahay qof iska shakarsan, iska ogow keli hadday tahay adoon waxba iska ogeyn, hadda waxaa iska ogaata maba jirtaba. lianna maxaa yeelay adkaariyaadka aad akrinaysid iyo salaadaha cibaadaadka ilaah u taagan tahay oo khayraadkaa samaynaysa baaba kugu filan. laakiin haddaad tahay qof iska tuhumo qaba, ama inan walaasha oo qaariyad qur-aanka taqaana ha ahaato, ama wiil aad ku kalsoon tahay qaraabadaada ha ahaado, ama mucalime arrinkan garanaya shu-uuntan ha ahaado, inaad u tagto buug ama shay baa laysku laabayaa dhegtaadiiba. nacam, buug ama shay baa laysku laabayaa dhegtaadii baa toos loo saarayaa. waxaa lagu aqrinayaa aayaadka goosgooska ee sixirka iyo jinka isha ee qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ku wada jira. haddaad wax qabtaa ma jirkaaga wax isku lamaanaynaya, waxaa xaqiiqa inay soo daahirayaan. qur-aanka qofka korka looga aqrinayo ee qur-aanka toos dhawaaqii dhegta ugu dhacayo way kala ta'hiir badan yihiin. kan dhegta toos ugu dhacaya ee qofka afkiisa toos ugu soo bixinaya baa ka ta'hiir badan, kana raadeyn badan, kana soo saar badan jirka bini aadamka waxa ku jira. marka insha araxmaan qofka kuugu dhawaasho badan oo ku kalsoon tahay diintiisa iyo iimaankiisa, dhegta ha kaaga aqriyo qur-aanka. insha araxmaan wixii soo daahira ilahay subxana wa tacaala wuu ku yaro macno daraysiin doonaa, ama wuu kaa soo daahiri doonaa insha araxmaan. ama haddaan iraan hadda calaamad walba ee lagu garta inaad tilmaano, waqti inay naga qaadato baa suuroobi karayso. laakiin saddexdood haddaad doonaysid, iyadoo mid walba gooni aan uga hadlay, sixirka calaamadiisa gooni aan uga hadlay, jinka calaamadiisa gooni baa uga hadlay, isha calaamadiisana gooni baa uga hadlay. mid walba mawduuceedoo kamila youtube-ka bay ku jirtaa. dib haddaad u raacdo youtube-ka waad ka helaysaa. mid walba dhageyso. adunbaa markaa isku qiraya intaa calaamadood aad isku hayso, ama aad dareemaysa xanuun ahaan, laakiin xanuunada caadiga aad u malaynaysa markaasi. waayo waxaana sidaa u leeyahay ugu badan waxaa weeyaan qofka calaamadahansi markuu sidaa qofka qur-aanka looga aqriyo, in badanoo ka mid a ama waxbaa soo daahirayo, ama ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idil uu ka barayeelayaa oo ma uu dareemaya dib dambe. walaash baa su-aashii soo celisay oo aday waadixi aan lahaa. waxay igu tiraaday, sheekh, wiilka muddo badan ayuu xanuunsan yahay. qur-aan mararka la saarana qur-aanka mararka la saarana sixir ayaa ka hadlayo, waana la cabsiiyey. xaqiiqatan hadduu yahay sixirka markaa mid soo daahiray oona ka hadlay, mid la cabsiiye uu yahay, waxyaabaha waxay ka mid tahay ilaah baa subxana wa tacaala fududayn kara, ugu fudud ee qofkaasi jirka ilaahay baa ka saari karaya, haddii lagu dadaala ka bixi karaya. sixirka markuu caloosha uu ku jira uuna yahay qofka wax la cabsiiyey ama la cunsiiyey, asbaabiyaadka inta ugu badan ee ilaahay subxaana wa tacaala jirka uga saari karayo waxaa ka mid a qofkaasi calooshiisa in la socodsiiyo, khaasatan dhirta middeedii tanka leh ilaahay baa ku saari karaya qofka laga matajiyo, ama yacni waxaa weeyaan uu macnaha saxaroodo hoos oo uu ka dhiga. labada xaaladood buu sixirka inta badan kusoo bixi karaya. marmar baad dareemaysaa sixirku markuu caloosha uu jin wakiil uga yahay ku dhex ilaalinayo,
shayga qofka inuu mataguu doonayaa, caloosha halkan buu kasoo gocanaya, shaygii baa soo dhaqaaqay, dhuunta markuu yimaado inuu soo mataguu doonayo ma soo baxayo, dib buu u laabanaya. waxaa la yidhahdaa sixru lmuwakaliina biljaan, sixirka waxaa loo wakiila jinka, markastuu shaygina soo baxa doonay isagaa dhufanayo oo hoosuu celinayo. isagana daaweyn baa jira oo tan leh oo qofka ilaahay baa kasoo saari kara. asalka inta tijaabo laga qaaday haddii shaygaas u isticmaalo dawooyinkaasi qofka oo dhirta herbalka ah, in badan oo ka mida ilaahay uu kasoo saarayo sida ilaahay ka rajaynayo. qofkaasoo kalena aad ha u badsado cabitaankiisao idil ha ka dhiga biyaha tahliisha ee loo tufay, ama isaga ha tufto ama walaalihii ha u tufeene cabitaankeeda aad ha u badsado. waxyaabaha sixirka soo saari kara ka mid tahay. waxaa kaloo sixirka soo saari karo ilaahay subxaana wa tacaala hadduu kuu garab galayo qofka laazima toonta cunitaankeedii, toonta cunitaankeeda qofka laazima, iyadana ilaahay subxaana wa tacaala in badanoo ka mida wuu u sakhirayaa sixirka calooshiisa ku jira inuu ilaahay subxana wa tacaala kasoo saaro. toontana marka isticmaalkeeda qaab loo isticmaalaa jira marka la doonayo sixirka inay soo saarto. waayo toonta midna waa mid shiidan, midna waa mid burbur aho oo macnaha yani iyadoo dhan mir ah. waxaa la doonayaa midda noolnool oo sida geedka looga soo gooyo, aan la shiidin, neutralkeeda waxeedoo idil isla wadato. wuxuuna u isticmaalayaa maalin walba 3 waqti ayuu isticmaalayaa min jab. diirka baa laga qaadayaa, jab ka mida ayaa markaasi waxaa weeyaan macnaha ka goynayaa. jabkaasi ayuu wuxuu u laqayaa sidii kaniinkii ayuu u liqayaa, isagoo ku liqayo galaas biyo ah. markuu marka sixirka sidaa oo kale u culisaya, waxaa wanaagsan 5 saacadood oo isku xigta maalinkii oo min jab iyo 1 galaas biyo u cabo. 5 saacadood oo isku xigto oo min jab iyo galaas biyo ku liqayo inuu sameeyo muddo 3 maalmood. haddii wax isaga garto 7 maalmood uu kaamilo. 7 maalmood kadibna inuu maalin walbo 3 waqti, qadada, quraacda, cashada horteeda halkaa gabal uu laqo. in badanoo ka mid wixii kasoo daahira faa'iidaduu ka helo isagaa markaas insha allah ka jawaabi doono. ilah baa rajeynaya subxana wa tacala inuu la garab galay biidni araxmaan. walaalaha muslimiinta salaamaya waan salaamaya, salaamu ullahi calaykum waraxmatuh wabarakaatu. sidoo kale waxaa masaladaha iyo su-aalaha weydiinta arrimaha iyo shu-uunta ku saabsan sixirka isha iyo jinka. waana waxyaabaha maanta lagu dhib qabo bay ka mid tahay daafaca caalamka. xaqiiqatan walaalaha muslimiinta, qofkii adoo dan weynka lahayn, adigoo maal badan aadan ka rabin, ayaa waxaad jeceshaha nafsadiisa yar oo ilaahay uu siistay, uu doonaya inuu ku noolaado, inaad adigu la ciriiri geliso. bal haddaad xataa samaysa falki oo aad isleedaha xataa qofkaasi wax maanta aad ka faa'iidaysido gooni baa jirta, wax walba ka faa'iidaysato 2 maalmood iyo 3 maalmood baad ku raaxaysan. kadibna adiga unbaa beri dib ka qoomameynayo oo maxaa falki u sameeyey inaad dhahda baa suuroobi karaysa. marka ilaahay subxana wa tacaala baa rajeynaya ragga saaxiriinta ah ee dadka sixirka u sameynaya iyo kuwa loo sameynaya thamanka adduunkii macaankeedii ladigeeda raadinaya, in ilaahay subxaana wa tacaala ummadda uu ka qabto. xaqiiqatan dadkii in badanoo ka mida maanta waa la kala saari la'yahay. waryaa raaqi ah oo dadka ku daaweynaya kitaabka ilaahay sunnada nebiga sal alay wasalam, iyo yaasan ahayn baa dadka la kala gara la'yahay. sida qoroqod loo leeyahay oo loo dhaadhacaya ayaa mar walba maanta oo dhan dadkii suxarada afkoodii lagu wada daadanaya. qofka markuu soo hungoobo, lacag laga dhammaysto, dhibaato badan lagu sameeyo, ayaa inta badanba uu xasuusanayaa inuu arinku ku sugnaa uu qalad u yahay. ilaahay subxana wa tacaala baana ka rajeynayaa in ummadda u waadixisaan ugu waadixinayn ummaddan inay ugu baraarugsanaadaan, inay iska kala eegaan qofka ilaahay kitaabkiisa sunnada wax ku daaweynaya iyo qofkaan wax ku daaweynayna insha araxmaan. walaalaha muslimaadka ka mid ah su-aal weydiinaysa waxay leedahay sheekh, nabrada iyo nabraha iyo nabrada waa isku mid, iyo madmadowga maxaa weeyaan oo maxaa sababi karaya? walaal, nabraha waxay ku xiran tahay asbaabtii qaabkay kaaga soo baxaan. hadduu yahay nabar jirkaaga ku dhacay oo dhicaan keenaya oo bukeynaya ama dhicaan ka imaanayo, ka inta badan waa wax ku xiriira yacni waxaa weeyaan dhaqaatiirta. taasna in dhaqaatiirta ula laabata ayaa wanaagsan. laakiin hadduu yahay
calaamadaha jirka kasoo baxaya nabraha madmadow xanuun aan kugu qabanaynin marmarna xanuun yar leh inta badanna xilligu kaa soo baxaya aadan garanaynin oo habeenkii baad jiifatay subaxii jirkaada qeybo barbara madmadow baa soo kacday maalinkii baad joogtay wuu baaba-ay misna habeenka kale wuu soo baxay nabraha caynkaasoo kale hadduu yaha tilmaamaysid waxaa sababa isha bini-aadamka jirka xubintaasi ku xanuunaysa oo madoobaatay ama jirka madowga noqotay nabraha ah sababi karaysa waa inta badan calaamaadka lagu garto adigoo nabra iyo waxbana kugu oolin habeenka jiifta subaxii aa soo toosto jirkaaga barabara madow leh ama jirkaagaa mooda wax la xagtay oo xagtiimo dheerdheer ay ku yaalaan isha bini-aadamkaa sabab ah ciyaadan billah in badan oo ka mid a qofka waxaa wanaagsan taxasunaadka adkaariyaadkii qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala inuu laazimo akhrinteeda ilaahayna ma dayici doono qof markaa ku xiran ilahay kitaabkiisii sunnada nebiga sal alay wasalam iyo dadka wan wanaagsan la socodkooda xaqiiqatan dadka ahlu macnaha waxaa diinka ah ahlu cibaadaadka ah ahlu cilmiga ah bixasbi intaa saaxiib la tahay in badanoo ka mid a ahlul ashraar dadka sharta u saaxiibka ah baad ka badbaadaysaa inta dadka ahlu ashraartana saaxiib la tahay oo mar walba cibaadadii dadka ahlu khayrkii cilmigaad ka fog tahayna shayaadiinul insi waljinni way kugu soo baahayaan dhib kasta bay ku gaarsiin karayaan marka waxaan leeyahay walaalaha muslimaadka insha araxmaan in badanoo ka mida isku daya dadka saalixiinta dadka wan wanaagsan ee ahlu cilmiga inaad la rafiiqdaan maxaa yeeley mar walba cilmi baad ka dhexlaysaan aqoon baad ka dhexlaysaan ra'yi baad ka dhexlaysaan mar walba kula hadlay waxaa laga yaabaa kitaabka ilahi sunnada nebiga sal alay wasalam inuu kugu baraarujinayo oo ku xasuusinayo marka waxaan leeyahay walaashaasi nabraha ceynka kaa soo baxayo kuwaan xanuunka uga haynin oo habeenkii kaa soo baxay maalinta baaba-ay haddana meel ka soo baxa jirka haddaad aragto in badanoo ka mid a isha bini-aadamka waay laakiin nabar dhicaan leh oo dhicaankeena hadduu yahay waa mid ku salaysan dhaqaatiirta baa la aadaysaa jazaaka illahu khayra wa axsana allahu ilayk walaalaha muslimaadka qaar ka mid a duceynayo ilah baa rajeynaya dhammaanta iyadii inuu na barakeeyo ilaahayna subxaana wa tacaala noo furo yani waxaa weeyaan fahamkeenagii iyo mid kastoo muslimiinta ka mid a si ilaahay subxaana wa tacala nooga gargaaro fi daari dunya wa daari alaakhira biidni araxmaan walaalaha qaar baa dib ka soo gelaya saan dareemayo waxaa laga yaaba mawduuc inaysan ka warqabin insha araxmaan mawduuca waan ku celinayaa waxaa weeyaan weydiinta arrimaha iyo shu-uunta ku saabsan su-aalaha xanuunada dadka ay dareemayaan ee ku saabsan sixirka jinka ama isha saddexdaas xaaladood dadka xanuunadaasi garanaya oo soo maray baa in badanoo ka mid ka warami kara oo sheegi kara laakiin dadka weligood aan soo marin waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid inay la yaabaan su-aalaha noocaas oo kalea laakiin waa waaqic maanta taagan ummaddana aada ugu baahay in badanoo ka midna ay la taala dhacayaan qaar badanoo ka midna xanuunada ahaayaan laakiin moodaya xanuunada ee dhaqaatiirta ku saabsan inay yihiin laakiin xaasha wakalla in badanoo ka mida dhaqaatiirta kuma saabsan xanuunadaas waa xanuuno u baahan inuu qofka isaga tabiibo qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala ee sunnada nebiga sal alay wasalam oo ah adciyada waaridada ee soo arooray oo saxiixa ah inuu isku daaweeyo iskuna xifdiyo marka masalada iyo mawduuca waxaa weeyaan weydiinta su-aalaha arrimaha iyo shu-uunta ku saabsan sixirka jinka iyo isha jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum waa soo dhowaan karaysaan masaladaha cid ka mid a ee markaa qabta ama xanuunadaa dareemayo hadduu doonayo inuu ka samata baxo ilah baa ka samata saari karaye in ra'yi talo uu kaga samata bixi lahaa la siiyo hadduu markaa xanuunadaasi uu yahay mid aan fahamsanayna uu u fahma arrimaha iyo shu-uuntaas oo kale marka arrimaha laga hadlayo dad badanoo ka midaba waxaa laga yaabaabo xanuunadoodii ay u haysteen xanuuno dhakhtar ku saabsan marka laga sheekeeyo qof walba marka uu ku leeyahay sheekho aniga inaad iga hadlaysa baan moodaya xanuunka marka aad tilmaamaysay xaqiiqatan qofkiina nama ogin cilmul qeybkana ma garanayna ilaah baa cilmi qeybka yacni la gooni noqday cid sheegan karaysana ma jirto laakiin qiyaas waxaanu tilmaami karnaa camalka intaanu ku dhex jirnay xanuunada laga dhaxli karo saddexdaas sha'ni qofka bini-aadamka ah jirkiisu la beegsami kara ama uu dareemi karaya marka rabbi baa subxana wa tacaala rajeynayaa qof kastoo xanuunadaa dareemaya inuu ilaahay subxana wa tacaala ka samata bixiyo uu ka qaado inahu waliyu dalika walqaadiru caleyh maxaa yeeley ictimaadka ugu weyn waa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waxaa weeyaan oo kaa badbaadiyo shu-uuntani arrimahani adigoo caafimaadii bad qabana ilaahay subxaana wa tacaala aada noqoto mid uu cibaadaysta calaa macnaa sixatu saxiix adoo caafimaad wanaagsan oo saxiixa qabo insha araxmaan ilaahay subxana wa tacaala inta ducaynaysana ha karaameeyo macnaha ilaahay subxana wa tacaala ha sharfo
maxaa yeelay ilaahay subxana wa tacaala baan u rajaynaynaa qof walba muslima inuu kaa dulqaado xanuunka iyo arrimahan shu-uunta ay dareemayaan. masaa-isha su-aalahana weli waa ay furayeen. jazaakum allahu khayran. waxyaabaha qaarkooda ee mucjizada igu noqdo aan la yaabo waxaa ka mid ah dadka banaanka kaa jooga ama qaraaba ha kula ahaadeen ama ha kula ahaadeen yacni waxaa weeyaan dad banaanka deris kagala ah ama dad muslimiina isla wada tihiin ha ahaadeen, haba ku xasdeen, ha ku sixreen, dhibaato ha kugu sameeyeen. waxyaabaha mucjizaadka ugu badan ee isoo maray oo aan la yaabay waxaa ka mid ah wiil walaalkii la dhashay sixraya liajl thaman adduunye awgeedii. kii weynaa baa wax sixraya, kii yaray buu sixraya. markaan weydiiyey qaabka loo sixray, wixii jirkiisa ku jiray ka hadlayaana waxay leeyihiin ninkaas baa ina soo diraya, ninkaa weyne wiilka la dhashay kala bah wey, isku aabo weeyaan laakiin waa kala hooyo. wuxuuna macnaha u sixraya waxa weeyaan dhaxalka aabbihii uu wax ka lahaa inuusan waxba ka xasuusanin oo isaga dhan la jaajaamo oo ninkaa weyna dhaxalkaasi isaga uu ku fadhiistay, cid dambanaysa kusoo hunguriyeenin. ilaa maanta dadkii walaalaha ahaa isla dhashay oo wada dhiigga ilaahay subxaana wa tacaala ee dhalashada wada siiyey ay isku adeegsanayaan falka sixirka liajli hantidana aabbahayn nooga dhibtay hanaga soo hunguriyeynin. laakiin miskiinka wuxuu halmaamay in adduunka maanta isagii uu malaynayo inuu ku waarayo, sidii aabihii uga tagay buuna isaga uga tegayaa. sida aabihii uga tagayo walaalkiisaan uu dhibaateynayo, sixirka ku dhibaateynayo isagana ugu tegi doonaa. wuxuu la hortegi doonaa amaam allahi tabaaraka wa tacaala maalinka la weydiiyo dhaxalka iyo xaaladiisa iyo sidii ilaahay subxaana wa tacaala ugu garsooray diinta tani inuu u sameeyey falkaasi siduu walaalkii u fogay ilaahay awgeeda. waa adduunye qaribantay weeyaan. waa meesha maanta ugu darnaanshaha badan. qof kastoo sixir lagu sameeyey wax kasta laga doono marka laga soo tago waa meesha ugu dambeysa weeyaan oo qofka bani aadamka oo sixir u adeegsan karo walaalkii la dhashay ciyaadan billaah. waana wax aada looga khiirooda weeyaan oo qof kasta oo muslima xataa ku noqonaysa waxyaabaha ugu mucjisada badan oo qofkan uu ku dhibaatoonay had iyo goor. marka insha raxmaan masaa-isha waa ay furan yihiin, walaalahana way weydiin karayaan. jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaalaha muslimiinta ee salaamaya salaanta waa laga qaadayaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waad soo dhawaaneysaan insha الرحمن. arrimahay mawduucan inala socotaana aada u filaya waa arrimahay shu-uunta ku saabsan weydiinta su-aalaha sixirka isha iyo jinka biidni الرحمن. walaal muslimaad ka mid a su-aal kala weydiinaysa waxay leedahay sheekh su-aashii hadda aad ka jawaabtay ee ahayd nabraadka jirka ka soo baxa ee xanuunka badan lahayn anigu ayaa isku arkay, maxaa lagu daweeyaa? jazaaka allahu khayran sheekh, allaha ku xifdiyo.
waa inta aan kuu sheegay walaal. haddaa xanuunkaasaad isku aragtay ee isha bani aadamka ayaa iskale qaabkaasi. haddii la garto saan mara horey usoo tilmaamay qofka ee isha ka dhacday, waxaa ku wanaagsan inaad erga u dirsato, ama adu hadda kaa yeelayaba in markaa kuusoo weysaysto weysadiisii uu ku weysaystay biyahaasi aad ku qubaysatay. in badanoo ka mid a waa lagaga caafimaadaa. ishii ciday ka dhacda haddaan la garanayninna, inta badanna waxaad ku dadaalaysaa taxasunaadka, salaadaha awqaadeeda ku tukato, juskaaga qur-aankaad akhrisato habeen walba ama 24 saac intaada seexan inaad akhrisato, adkaaro sabaax walmasaa ku dadaasho, maalinkii aqalan hal mar inaad sadaqa aad baxsato oo aad u niyeynayso in ilahay xanuunkan kuga caafiyo. waayo sadaqada waxyaabaha ugu badan ee siriga ah, xanuunaadka khatarta lagu daaway xataa way ka mid tahay. xataa u fiirso, adigoo culays ku hayo, ama family haka haysto, ama nafsadada culeys ha haysto, ama ehelkaada culeys ha haysto, u qasad un hal mar inaad baxdo miskiin sadaqa ku sadaqayso adoo u niyeynayso culeyskaas inuu ilaahay kaa qaado. wallahi faraj qariib oo deg deg bay leedahay sadaqada baxsashadeeda. marka sadaqadan inaad ku dadaasho bixsataakeeda, khaasatan bacda kuli salaad kastoo aad dukata gadaasheediina inaad ku dadaasho inaad akhrisato aayatul kursiga iyo mucaawadataanka. waxyaabaha qofka xifdin karo bay ka mid tahay. intaa waxaa dheer saliido gaar baa jira oo dhir lagu sameeyo, ilaah baana xifdin karaya, laakiin in badan dadka caawinaya ee jirka la marsada baa jira. saliid zaytuunka ayaa dhir lagu karkariyaa. dhirtaasi habeen walba qofka hadduu laazimo marsashadeeda muddo bila, in badanoo ka mid a xanuunkaa jirka wuu ka zuulaya. waayo waxna waa wax gudaha macnaha badanka ku dhaca, waxna waa daahirka badanka wax ku dhaca jirka qeybtiisa sare. jirka qeybtiisa wax kasoo baxa hadduu yahay, qofka intaasoo soo sheegay hadduu taxasunaad isku sameeyo, yacni saliid-saytuunkaasina uu markaasi dhirta lagu daro u isticmaalo, in badanoo ka mida wuu ka caafimaadaya. in badanoo ka mid a wuu ka caafimaadaya. waayo isha bini aadamka markay qofka ay ku dhacdaa ma ay asiibtaayo, midna qofka way jiifisaa oo wuu dhacaa, maskaxda bay ka qaadaysaa. midna waa bilowga isha bini aadamka, waa soo bixitaanka nabraha yaryarka ah oo haddana xanuun aan ku haynin, kadib haddana jirka meel kale kasoo baxayo. taa weeyaan hadduu qofka ku adkaysto waxbase ka dhigan, ama waxyaaba kareemin oo maryood, waxyaabaha dhaqaatiirta ku saabsan uu u maleeyo, way ziyaadaysa. waayo isha bini aadamka meeshay gashay, il labaad ku dhacday, mid saddexaad ku dhacday, marka ugu dambeysa tarkiib bay noqonaya. isha way isduldulfuulaysaa, markaasuu qofkay soo ridanaysaa, wuu dhacayaa, jinkiiba u weydaaranaya, qofkiina maskaxda ayay ka qaadaya mar walbaba. marka insha alla raxmaan howshaas culus intaysa kugu gaarin, inaad iska dabiibto meesha ugu dhow ee aad joogto, in culimmada aqoonta u leh shu-uuntani arrimahani inaad la kaashato, inaad iska dabiibto, adigu nafsadaada ku dadaasha isku day. khaasatan ahlu khayrka iyo dadka cilmiga lagu tuhmaya dumarkaana ama ragga oo macnaa wadaadadana ku xirnow oo cilmigana ka qaado, mar walban ra'yi talo weydi arrimaha ku saabsan. in badanoo ka mid a ku aflixaysa, ilahina kuga caafiya. ilah ka rajeynaa. jazaak illah khayra. insha raxmaan waqtiga ugu cidhiidha awgeeda 4 saac markii la gaaro walaalo kale muslimiin baan lamballansanahay. insha raxmaan waxaan yaharsan muddo 7 daqiiqa. insha raxmaan 7 daqiiqa kadib waan faaruqayaa. walaalaha wixii masaa-il u harsan waa ay weydiin karayaan insha raxmaan. wixii ka dambeena insha raxmaan wixii dardaaran baan isu dardaarmaynaa, si ilaahay subxaana watacaala inaga iyo idinkaba inooga xifdiya min shayaaiin al-insi waljinni wa makru shayaatiin. ilaah baan rajeynaya qof walba inuu ka caafiyo arrinkaasi, inta la taalaa dhacayso, inta la dhibtoonayso, dhammaantoodiiba ilaahay subxaana watacaala isagaa u awleysan. allahna wada xifdiya dhammaantayada insha araxmaan. keeni yaraa keeni weynaa, kii xanuunsanaa iyo kaa xanuunsaneenba, kulliga yagii waxaan u baahannahay xifaadada ilaahay subxaana watacaala. ilaah baa rajeynayaa inuu fadligiisana nagu xifdiyo, inahu waliyu dalika walqaadiru caleyh.
إن شاء الرحمن دردارنك ودن بي إن شاء الله ولا له دردار مية. أولا وحيابها إلهي سبحانه وتعالى كوغي حفظين كروحا كميدا دائما إنا تهي قفوي سقبة، دائما إنا تهي قفوي سقبة في كل حال. حالات كسو كسوكنت هذا شقو كسوكنتاي هداد غوريغاغا جوجت هداد غاريغاغا ودو ميل كستي حالات كستود كسوكنتahay inaad tahay daa'iman qof weyse qaba. weysadaas qabto waxyaabo badan bay sabab kugu noqonaysa inay shayaadiintu kugu soo dhiiraneen. asbaabta labaad ilaahay kugu xifdina waxaa ka mid ah inaad tahay qof daakira fi kulli laxda, qof ilaahay xusayo laxda kastoo noloshiisa ka mid ah ama ilbiriqsi kastoo noloshiisa ka mid ah. qofka marka siduu ku noqon karaa daakir ma inaad tusbax qaadato, inaad qol isku soo xirto, inaad meel ku jirto oo mar walba la qooni noqoto ma aha daakirnimadu. daakirnimadu waa inaa carabkaaga mar walba uu ka qooyan yahay xuska alla subxaanahu watacaala. waayo saxaabigii nabigu u yimi sal alay wasalam ku yidhahday rasuul allah ii dardaaranka nabiga waxaa ka mid ahay laa yazaalu lisaanuka ratban can dikri illah. carabkaagii uu ka zuulin inuu yahay mar walba mid ka qoyan dikriga iyo xuska ilaahay. adoo gaarigaaga wado, adigoo inan haddaad tahay jikada ku jira, haddaad adoo jiqa jiifo, adoo ubadkaaga la ciyaarayo, xaalad kastaa ku sugan tahay ma aad kari weynaysid inaad tidhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik. ina adkaariyaadkaasi ku celcelisaayo afkaaga marnaba ma dhibayo mana daalayo. waa min asbaabta labaad ee ilaahay kugu xifaadeen kara kaana xifdin kara min shayaaiin ulinsi waljinni. asbaabta saddexaad ilahay kugu xifdin kara waxaa ka mid ah inaad daa'into aqalan habeen walba inaad seexanin inaad aqriso juz quraan mooyaane. raatib aad ka dhigato, joogta aad ka dhigato. haddaad quraan kor suuratulbaqara ka bilaaw, soo deji 30 maalmoodba hal mar dhamay. haddii carabkaaga mid fudud uu yahay 2 juz 3 juz intaad ka gaarto sidii maalin walba aad u aqrin karayso. waxaa ii cajab geliyey, waxaa ii imaaday maalin dhexdaasi aabayaasha muslimiinta ka mid ah ee qurbaha ka yimid. markuu imaana wuxuu igu yidhahda waxaan jiraa 75 sano, qur-aanka waxaan dhameeyuu yidhahda anigoo 13 jir ah ama 12 jir ah. ambaqaadkii ilaahay aan ka bariyey inaan ku sugnaaduu yidhaahday waa 75 jir. markaas soo ambaqaaduu yidhi ilaa hadda ubadkayga ubad kala sii dhalo awooba aan ahay. hal habeen kama seexan uu yidhi juskayga qur-aanka inaan aqriyo. bal meeshuu qur-aanka akhriskiisa kusoo bilaabay eeg 13 jir buu kusoo bilaabay. wuxuu yidhi maanta 70 iyo waxaan jiraa uu yidhaahday 5 sano. wallaahi alcadiim wuxuu igu yidhaahday 3 maalmood mar baa qur-aan ka dhameeya. maalin walba bacda salaad subaxaan fadhiistaa intaan 3 sac 2 sac la gaarinna 10 juz baan aqriyaa oo maalin walba ah. rabbi subxaanahu wa tacaala siduu ugu fududeeyey digrigiisa qur-aanka ah inuu ku dhameeyay qur-aankii 3 maalmoodba hal mar. adigoo marka miskiin ah oo ka jiryar oo ka dhalinyarisan oo ka caqliga yacni xagga curdanka ah, halkii habeen miyaa kari weysa hal juz oo qur-aan inaad aqriso. walow haddaa qur-aanka oo dhan aadan garanaynin juscamo aad garanaysa, juscamo maalin walba ku celceliya habeen walbo xifaaday kuu mid tahay. ilaahay uu kugu xifdinayo, ilaahay uu kugu xifdinayo bay ka mid tahay. marka saddexdaas abaaba ugu weyn inaad tahay qof weyse qaba, inaad tahay qof ilaahay digrigiisa mar walba akhrinayo, afka macnaa ka akhrinayo adkaaru sabax walmasa iyo adkaariyaadka kale. inaad tahay qof yacni aqalan habeenkii inuusan seexanin juz qur'aan inuu akhrista mooyaane. marka insha allah raxmaan walaalaha muslimiinta intaas ay u dardaarmaya. wa jazaakum allahu khayran. waqtigii intaa ku ballanay amaan idiin sheegay waa la gaaray. ilaahay baa rajeynayaa qof kasta oo muslim oo xanuunsanaya inuu ilaahay caafiyo. qof kastaoo muslim ah xanuunada caynkaane ka tabanay iyo xanuuno kaloo rabbaani ilaahay ku imtixaanay ha ahaadeene